maxaa cusub wareegtooyinka uu maanta soo saaray madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro laba wareegto oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa kala ahaa isla markaana ay ku cusbaayeen 3 wasiir dawle iyo 17 wasiir ku xigeen xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa ay haweenku ka heleen 3 wasiir oo kala laba wasiir iyo sidoo kale wasiir ku xigeen waxa madaxweynaha Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu soo celiyay wasaaradaha kala ah madaxtooyada dibadejinta iyo duulistiya hawada sidoo kale waxa uu curiyay isla markaana uu soo kordhiyay wasaaradda dawladaha hoose iyo sidoo kale horumarinta magaalooyinka xisbiga mucaaradka ah ee ka ayaa isagu xukuumadda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxa uu ka helay 4 wasiir waxaa si weyn isha loogu hayaa qaab dhismeedka xukuumaddu iyo habka ay wax uga bedeli doonto nidaamka horumarineed ee guud ahaan Soomaaliland iyadoo sidoo kale ay jiraan tabashooyin dhinaca bulshada oo ku kala irdhoobay dhinaca siyaasadda xaaladda ka taagan gobolka Sanaag iyo sidoo kale tan Laascaanood Maxamed Cabdi Qalinle KTV Hargeysa